بسم الله والحمد لله. waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala taqwada alleh 2 daqiiqo si xigmad leh ayaan uga hadlaynaa insha allahu qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullah dhihi mayno. Matalan aan ka soo qaadno adigoo guri gatay oo gurigaas ay kaa gashay 100,000 amba 50,000 oo dollar ayadoo kaa gashay oo guriga waa dhammaysay waa dhistay muggii ciddii ay soo degi rabtay ayaa waxaa ka dhacay guriga agtiisa dagaalaa ka dhacay. dagaalkii mugga hadduu dhaco qabsida ugu weyn ee ku hayso waxay tahay gurigii 100,000 hadda ka bixisay talow amuu kaa dumaa maxaa guriga hoobiyaa ku dhacaayo firiraa soo gaaraayo. dhibaatada ugu weyn oo ku hayso waxay tahay talow lacagtaas kaa khasaartay haddii ay kaa gubato ayaa kuu soo celinayo. laakiin in adig dhibku soo gaara ka baqi maysid oo adigu waa ka qaxi kartaa meesha ilmaha waa qaxi kartaa adiga waa qaxi kartaa. laakiin gurigu kaala aan qaxnay kaa yeeli maa maaqaan guryaha hadda dambe oo casriga haddii luga loo yeela ma sheegin laakiin guryihii ani aan ogaay lugama lahaa jirin. hadda ka hor faarax golle waxay ka sheegeen xigmadoo lahay ajir laha siiye nimaa waxaa la guri dhistay oo wuxuu iri niyahow gurigii waa dhameeyey kaala ii damo gurigan waa waqtigii dowladdii maxamed siyaad barre mugaasoo wuxuu iri gurigan waa fiican yahay laakiin 4 lugoodaa ka maqan. wuxuu 4 lugoodoo sheegay xaytaa wuxuu iri muggi dagaal dhaco oo dirir dhacdo gurigan haddii meesha aadan ka qaxin ee aadan riixin guriga waa kaa gubaha oo waa xabadaa kaa soo gaara. haddii aadan lugo u samayn guriga riixi ma kartid. wuxuu iri mugga guriga waa fiican yahay laakiin 4 lugoodaa ka maqan guriga 4 lugood u sameey. bil iyo barbila ka bacdi dagaalkii aad aqabti gurigii ninkii sidii uu u sheegay naqatay ilaan gurigu haddii aan meesha laga wareejin guriga waa gubaha walaama. sidaas daraaddeed guriga aad dhisatay ee aad adduunka ka dhisatay waxaad rabtaa guriga aan dhaawac kaa soo gaarin laakiin ka waran kan aad ka dhisatay ilaahay agtiis maxaa yeelay qof kastoo naga mid ah guri ayaa ilaahay agtiis uga dhisan. qof kasta oo naga mid ah oo muslin ah guri dabaq ha ahaado 2 dabaq ha ahaado 3 dabaq ha ahaado wixii ilaahay ugu talagalay iyo wix adiga aad samaysatay dadaalkaaga haddii la isku dhufto qof walbaba guriga uga yaala aakhiro aan dhahno. guriga mugga waxaa kaa gashay tusaale ahaan 30 sanaa jirtaa 15 laga soo bilaabo ilaa 30 sano 15 sano ayaad waxaad gurigaas mar walba geliyeysa dhagax mar waxaad gelaysay laa ilaaha ila allah mar waxaad gelisay 10 shilin oo sadaqa mar waxaad gelisay waamar bilmacruufi mar waxaad gelisay wanahyi canil munkar mar waxaad gelisay haddii alla ku ran yahay sakaad mar waxaad gelisay soon mar walba oo cibaado geliso gurigaas aakhiro wuxuu loogu daraa bulakeeti hal bulakeetiyaa saartay mugga ku xigto waxaad saartay haddii alla ku ran yahay shamiido mugga ku xigo waxaad saartay lamayeerigi gurigii 15 sano ayaad dhisaysay guriga aakhiro gurigii waa kuu dhammaaday beriga waxaa jirtaa 30 sano tusaale ahaan 30 sano ama 40 ma ka soo qaad 40 aa jirtaa aan dhahnaba ilaa anaa 40 jireen 40 haddii aad jirtay mugga haddii aad xumaan samayso macneedu wuxuu yahay gurigii waxaa ka dhacay dagaal agtiis kulama aad xumaan samayso gurigaagii aakhiro waxaa ka gubahayo qayb mar lameerigaa gubtay mar dhagaxyaa gubtay mar haddii alla ku ron yahay iskifaalliya wax gaareen kulama aad xumaan samayso gurigaaga aakhiro waxaa soo gaaray dhaawac kulama aad qalad samayso gurigaaga aakhiro waxaa soo gaaray dhaawac. sidaas daraaddeed ilaahay waxa uu leeyahay asigoo ka warramaayo ina alxasanaati yudhibna sayi'aati uu leeyahay xasanaadka waxay tirtirtaa xumaanta oo haddii aad wanaag samayso gurigaagii oo dunsanaay ayaa kuu dhismaayo cagsigeeda haddii aad xumaan samaysana gurigii kuu dhisnaay waa kaa duma. sidaas daraaddeed walaalayaal wax kale yaynaan samaynba wax kale haba ku darin laakiin gurigaas kuu dhisan ha iska duminin. gurigaas kuu dhisan sida aan ognahay sanadkii waxaan gelinaa qaanada ilaahay 10,000 oo istighfaar aan dhahno sanadkii 10,000 oo salaadna aan dhahno macal sunnadii waajib ku dar 10,000 aan dhahno sadaqo oo kale oo lacag ah isku geegey qaanada ilaahay waxaan gelinaa sanadkii 50,000 aan dhahno 50kaas kun aan gelino haddii lasoo koobo ilan cibaadada qaarkoodaan ilaahay wuxuu ku leeyahay la naqo kaama rabeetan sax ma ahane
لا تبدلوا صدقاتكم بالمن آيات القرآن كما هينو عبادة قاركيت أي وحو كلها هاي مدان صح معهن وكل عبادة قاركيت معايا لي وحي آن إلهي لولا جيدين ومن دون الله لولا جيدو وحي لمتهاي سيدا أنا هرا وشاقني أديقو لعاقتي صوماليا مانفستدا ايهدكو استمعالي مرايكنك قفو كا قادمين موغا وحي إلهي آن لولا جيدين ومن دون الله شقاكم ملين تاس وحاوا إلهي وحو كلها عنوكو مرابو الله يا أولياء الله وحي قبطة iyo sheekh hebel wax ii qabo iyo qabri hebel biriga aan aaday wax soo weydiisto waa ilaahay macigiis wax ana lagu daray muga ilaahay wuxuu ku leeyahay aniga kaligay ayaan kugu filanahay kaligay ayaan ku abuuray kaligay ayaan ku dilaa kaligay ayaan ku soo bixiyaa kaligay ayaan ku keenaa macshiga waxba ha iigu darin qof baabuurka shirkadda iska leh samaysay شركات عن كاين هذا أوجيس وعيقول لهم بقولك أنا قبل هنا شركات أكسوق هذا الجي ولا ما موجا إلهي بني آدم كأسيجا سمي شركات أو سميس أساس كله عد كلا ضلوا عقود درته وحال يقول لي هاي الله نقو كامر منين موجا ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى أن ويدي سنة دم بداف ما أنتنا لقود بونتاي وحكلا هبك كينين بقى وحكلا هبك كدرين بقى لكن قولوا كل لسان إلى أكتس كأجد لسان هدو منين قفضا حمته قولوا جاي قيبة دنت حديث قوته هاي حق دقة كيل عرشة حق دقة كما تأكل النار حدب إن الحسد حسد معنا حاسن من كيل عرشة حاسن من وحي عنتا عماشة وناكسن سيد الدبكبة oo u cuno xaabada amba qoryaha muga walaalayaal yaana waxba ku darinba laakiin hala aan haysano aan waardiyeysano lacagta aad haysato ee aad banka dhigatay ma jeclid in ay si qaldan kaaga baxdo waxaad jeceshahay taas horta inaan la taaban oo aad mid kale ku darto waxoo la jecelnaa oo malaynaa maxaa yeelay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam umadayda xoola jeclid ayaa lagu abtiliyey muga lacagta aad banka dhigatay 10 kun 20 kun 30 kun waxay taaba waxaad rabtaa tu aad wax ku dartay iska dhaaf horta in ayda horta aysan ka halaabin hadaa wax ku darayso alxamdulillah hadaa wax ku darin ayday ka halaabin muga sidaas daraadeed walaalayaal ilaahay agtiisa lacagta noo taalo guriga noo yaalo bangiga noo yaalo yaanaan ku dheelin taas aan waardiyeysan hada billahi tawfiiq